horumarka iyo shaqada ka socota dekedda magaalada Berbera ayaa mid la jaan qaadaysa horumarka dekedaha caalamka waxaana sanadkii dekedda magaalada Berbera ay u adeegtaa 150,000 oo kontiinar iyadoo sanadaha soo socda la rajaynayo inay gaadhaan tirada kontiinarada la dejin doono 500,000 oo kontiinar sidaas si lamida ballaarinta dekedda ayaa qorshaha qayb ka ah wax soo saarka iyo horumarka beeraha ayaa mid si xawliya u koraya waxaana sharikadaha iyo maalgashadayaasha caalamku ay yihiin kuwa indhahoodu ay ku jeedaan haatan wax sektorkan beeraha ama wax soo saarka guud ahaan Somaliland aad buu u koray waxaan oran karaa ugu yaraan 3 laab ama 4 laab buu koray sektorka guud ahaan dhaqaalaha la gelinayo wax soo saarka gudaha ka soo baxaya yaraynta ku tiirsanaantii banaanka wixii laga keenayay waxyaabo fara badan oo runtii wadamadii labadii wadan ay isku darsadeen markii aqoonsiga laga hadlayay beeraha ka mid ahaayeen marka anaga lafteeda sharaa'ig badan oo runtii ajaanib ah oo magaca Somaliland mar badan baa la maqlay meediyagu aad ugu jiray marka shirkado fara badan oo arrintan ka shaqeeya beeraha ayna la soo xiriiray oo rabo inay sektorkan aad wax ugu ogaadaan email fara badan baan isku darsanay waxaan rajaynayaa in maalgashi rasmi ah isbedelkaas wuxuu keenayaa maalgashi cusub teknoolojiyad cusub inay Somaliland soo jahayso afadaha iyo magaalooyinka casriga ayaa kuwa laga hirgeliyay Hargeysa sanadihii u dambeeyay waxaana tani muujinaysaa sida Somaliland ay diyaarka ugu ahayd inay la jaan qaado magaalooyinka iyo wadamada dunida shaqa abuurka dhalinyarada ee xirfadaha kala duwan ayaa mid soo kordhaya guud ahaan Somaliland waxaana ay ku sheegayaan dhalinyaradu sida ku shaqaynta xirfadahani cusub ay qayb uga noqdeen inay bedelaan noloshooda Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland muhiim ma aha inaad tagto bangiyada kala duwan mashiinada lacagta ayaa kuwa diyaara 24 saacadood si ay qayb uga noqdaan fududeynta adeegyada lacag la bixidda si la mid ah caalamka saaxiibayaal hotelkan iga dambeeyana waa hotel 5 star ah dhawaanaya xariga laga jaray in ka badan 100 faracna waxa uu ku leeyahay guud ahaan caalamka tan waxaana tusaysaa sida magaalada Hargeysa iyo Somaliland runtii ay ula jaan qaadayso magaalooyinka dunida iyo guud ahaan caalamkaba sidoo kale shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka ayaa kuwa xarmo ku yeeshay sanadihii la soo dhaafay Somaliland waxaana ay qayb ka ahaayeen isbedelada dhanka horumarka ah ee socday saaxiibayaal gaarigan waa gaari brand new ah waxaana uu yaallaa mid ka mid ah macdarrada lagu iibiyo baabuurta brand new ah gaarigan waa Toyota waxaana laga keenay dalka Japan iyo baabuurta Hyundai oo iyaguna halkaas yaala dhammaantood lama isticmaalin toos ayaa loo keenay shirkadihii soo sameeyay waa zero mileage waxaana tan ku tusaysaa sida Somaliland ay horaba ugu diyaarsanayd isla markaasina ay ahayd goob laga helayo adeegyada laga helo dalalka ku yaala caalamka deegaanka xeebta magaalada Berbera ayaa noqday goob ay isugu yimaadaan dhalinyarada guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka balse markan waa uu ka duwan yahay dareenka dhalinyaradu sidii hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waxa la yiraahdaa Faadimo Cabdilaahi Axmed waxaan ka soo jeedaa gobolka Awdal waxaan halkan quruxda badan iskugu imanaysaa ugu dabaaldegno munaasabadda ixtiraamka Somaliland mudane madaxweyne waxaad aad iyo aad ugu mahadsantahay inaad suurto gelisay 34 sano wax suurto geli waayay alxamdulillah aad baan ugu mahadsanahay adigana Ilaahay ha ka abaal mariyo ajaanibta ku nool Somaliland ayaa iyaguna dhankooda qayb ka ah dalxiisayaasha imaada magaalada Berbera horumarinta iyo wax soo saarka badda ayaa dhankiisa mid si xawliya u socda waxaana warshadani oo ku taala dalka ay tahay mid soo saarta kalluunka qasacadaysan
iyadoo sannadaha soo socda la rajaynayo in la gaadhsiiyo wax soo saarka warshaddani waddamada jaarka iyo guud ahaan caalamka. daawade kani waxa uu ahaa muuqaal aan idinku tusaayey sida Somaliland ay horumarka u samaynaysay sannadihii la soo dhaafay iyo sida ay diyaarka ugu ahayd ka mid noqoshada waddamada dunida. sannadaha soo socda ayaa la rajaynayaa Somaliland inuu yimaado korukac dhaqaale iyo horumar weyn. ku xidhna waa iibshow lana soco muuqaal cusub.